nebiga sala allahu calayhi wasalam janaasadiisii markii la qaadayay nin culus buu ahaa oo cayilan. maa akhaf bay dheen saxaabada, alla maxaa ka khafiif badan janaasadiisa. intay qabteen bay kor u qaadeen. alla maxaa ka khafiif badan. wa kaana rajul samiin, nin samiina wuu ahaa. inaad idinka sidaan maad isku moodaan buu yidhi, malaa'ig baa sidee sala allahu calayhi wasalam. idinka inaad wadaan ma idinla tahay? yaa wada waayahe, malaa'ig baa wadaa. fars ama dameer baa loo keenay markii qabriga loo socday nebiga, wuu diiday inuu raaco. markuu ka soo laabanayay baa loo keenay, wuu soo koray. maxaa dhacay baa layidhi, markii hore aad u diiday, markii dambena aad u soo raacday. markii hore malaa'ig baa nala socoto 70,000 oo malag baa aaskiisa ka soo qayb gashay buu yidhi sala allahu calayhi wasalam. waan xishooday malaa'igtoo lugaynaysa inaan aniga faras ama dameer ku dhex raaco. laakiin markii aaskii dhammaaday way kala tageen. nebigana wuu soo raacay sala allahu calayhi wasalam. min almu'miniina rijaal, dadka dad baa ku jira qiimo badan oo naftooda iyo maalkooda diinta ilaahay u huray subxaana wa tacaala. dad baa ku jira adduunka wax daciifa la noqday. dad baa ku jira waxba aan u gelin, dhib kaystee la gaarsiiye cafiya, dulqaata, adkaysta, diinta ilaahayna xoog u qaata subxaana wa tacaala. maalmaha xasaasiga ah ee maalmahan oo kale ah yuu ilaahay u gargaarayaa subxaana wa tacaala. maalmaha noocan oo kale yaa su-aashooda carabkooda diinta lagu hagaajinayaa. shiiqa waan maqlaynay, tafsiir baan akhrinayaa. shiiqa waan maqlaynay, waxaan idiin samaynayaa dardaaran guud. waan maqlaynay afkiisa kelimada tawxiidka ka soo baxayay, diinta iyo qur'aanka ka soo baxayay, kuwaan lagu karinba xaaladahaasoo dhanba, aanba tafsiir iyo hadalkiisa soo qaadaynin, aan ilaahay amarkiisii waxyaabo kale dadka ku gubaabinaynin, oo hadalkiisii ujeeddadiisa iyo hamigiisa kan u weyn adduun yahay. allaahuma laa tajcal iddunyaa akbara hammina, ilaahayow adduunka murugteena kan u weyn ha ka dhigin, yuu ku ducaysan jiray sala allahu calayhi wasalam. walaa mablaqa cilmina, cilmigeena kan u weyn, waayo yaclamuuna daahiran min alxayaati addunyaa wahum can alaakhirati hum gaafiluun. waxay garanayaan, ay arkayaan keliya midaan muuqatay adduunka ah, aakhirana kaafil bay ka yihiin buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. laxdayeenan qalbigeena ka bixin ilaah subxaana wa tacaala. faacrid can man tawallaa can dikrina walam yurid ila alxayaata addunyaa. nolol adduun maahana wax kale aan doonaynin. ilaahay subxaana wa tacaala yar khayr badan allah marsiiya, insha allah wuu mari. ilaahay subxaana wa tacaala jannatu alfirdows ha ku abaalmariyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha uga dhaqa dembigiisa bilmaa'i walbarad iyo thalaj, intaba baraf iyo biyo qabow iyo biyo caadi ah. ilaahay subxaana wa tacaala dadka maalinta qiyaama wejigooda ifaya ilaahay ha ku daro subxaana wa tacaala. ilaahay qabrigiisa ha u iftiimiyo subxaana wa tacaala. ehelkiisa allah barakeeya inta uu ka tegay subxaana wa tacaala. ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu jecel yahay oo khayr badan oo wanaag badan uu u shaqaysanayay ilaahay ha siiya subxaana wa tacaala. rabbi xasanaadkiisa ixsaan ha ugu jaasiiyo, sayi-aadkiisana cafwi iyo gufraan ilaahay ha ugu jaasiiya subxaana wa tacaala. wuxuu qabtay howl aad iyo aad u weyn. ilaahay baanu uga baryaynaa subxaana wa tacaala abaalkiisa inuu ka siiyo, fadligiisana ilaahay uu ugu siyaadiyo subxaana wa tacaala. qof kasta anaga naga mid ah, geerida way xanuun badan tahay. ilaahayna wuxuu ku magacaabaa musiibo. wa asaabakum musiibatu lmowt buu yidhi ilaahay. meydka musiibu ku tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala. waxaad fahmi kartaa axadka shaqsiga muslimka ah ama qofka damiirka leh ama qofka ilaahay agtiisa khayrka ka leh, geerida ugu filanba waacid iyo wacdinimo. weliba markii dad sulaxa ay noqdaan iyo dad hagaagsan iyo dad ahludiin ah, way kasii mataqaanaa dhinac jirisan tahay, way kasii daran tahay, way kasii adag tahay, way kasii musiibo badan tahay, mataqaanaa way kasii dhibaato badan tahay. saan soo tilmaanay ma aha mataqaanaa shaqsi ama qof marka uu dhinto famil ahaan ku eg, laakiinse wuxuu noqonayaa mid caam ah, dhibaato fara badan ku ah muslimiinta, mashaakil fara badan ku ah muslimiinta. ibnu cabaas radia allahu tacaala canhu markii la aasay maxay dheheen dadkii meesha joogay? cilmi baa la aasay, cilmi ayaa markaa la duugay. cilmigii faraha badnaa waa baxru
umma, waa caalimkii ummadda, waa xabrul umma. sidaa darteed ka waran haddii la aaso oo la duugo, cilmigiisii waa lala duugayaa. sidaa darteed baa dadka gobol ka mida way ka reebaan culimada. mar kasta waxaa la rabaa marka sidii wax looga reebi lahaa, waxaa la rabaa sidii wax looga qaadi lahaa, waxaa la rabaa sidii wax mataqaanaa inta ay laga gaarsiin karo markaa laga gaarsiiyo. waa shay lagama maarmaan ah. sidaa darteed buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam, cilmiga waa la qibdoon doonaa, jahligana wuu faafi doonaa. cilmiga laguma qibdoonayo intizaac iyo siibid ilaahay uu ka siibo qulubta addoommadii taqiinay, laga tirtiri maayo. qalbigooda wuu ku jiraanayaa, qalbigooda wuu ku sugnaanaa. sidaa darteed tirtirid ilaahay uu ka tirtiro ama hilmaan ay hilmaamaan dadkii yaqiinay ma aha, laakiin waxaa lagu qibdoonaya oo cilmiga lagu tirtiraya biqabdi alculamaa, culimmada geeridooda. qiyaamay u badan doonaan, aakhira xaggiisay u aadi doonaan, dhammaan xaggaasay u badanayaan. in badan baa laga qaadaa. weliba dadka saalixiinta ee wanaagsan fitantuu kala cararaa ilaahay subxaana wa tacaala. in badan baa fitanta laga ilaaliyaa. adduunkaoo bashbash leh oo barwaaqo leh oo wanaag leh oo weli wax ka muuqdaan ayaa laga qaadaa. sidaa darteed baa waxaa isku soo haraya, waxaa la weynayaa hal caalim buu yidhi nebiga, hal qofood oo cilmi yaqaana. ummaddu maxay samaysanayaan? ittakhada annaas ru'uusan, madax juhaal ah, jaahiliin ah, waxba aan kala garanayn, waxna aan aqoonin. culimmadii way cayn jireen markay joogeen, culimmadu maysan ixtiraami jirin markay noolaayeen. cilmigoodii uma arkin baahi in loo qabo markay noolaayeen. waxay samaysteen ru'uus iyo madax jaahiliin ah. su-aal baa la weydiinayaa, way fidyoonayaan, way jawaabayaan. cilmi la-aan ayagiina way dhumeen, dadkiina way dhumiyeen buu yidhi sala allahu calayhi wasalam. bacdamaa sidaa ay tahay, dadka muslimiinta ha la dadaalo. asifat alaasifa, tii dhoweyd ayaa soo dhowaatay, tii dhoweyd ayaa markaa timid. wax ka dhimani markaa ma jiro. sidaa darteed walaalayaal aan dadaalno. haddii tacsiyada inaga dhammaato oo qolalka habka loo tacsiyeynayo iyo murugadana haysato in yar ay naga khafiif noqoto, wax badan ha la bedelo sidii la ahaan jiray. qolku ha noqdo qolkii jaamacadda ahaa oo khayrka badnaa oo wax kasta markaa loogaga faa'iidaysanayay. cilmigii la aqrin jiray hala laba jibaaro, wixii la dhagaysan jiray hala laba jibaaro. wakhtiyaa socda ha lagu xisaabtamo, wakhti baa sii tegi raboo dhammaan raba ha laga gaarsiiyo, wakhti baa tegi raba aad iyo aad ha loo sii dadaalo. sidaa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa khayr iyo wanaag waxaa ka gaaraya qofka geerida xasuusta, jannada ilaahay u dargarooba, cadka ilaahay ka carara, qadabkii xanaaqa ilaahayna ka gaashaanta inta adduunka joogo. in badan oo badan ilaahay ha u naxariista subxaana wa tacaala. sheekha naxariistii jannana ilaahay ha ku abaalmariyo, cizi iyo karaamo aan la soo koobi karina ilaahay ha siiyo subxaana wa tacaala. xabaasha mugtiga ahna ilaahay ha u iftiimiyo subxaana wa tacaala. khayr fara badan oo unan filaynina ilaahay gacandiisa midigta allah ka siiyo in shaa allahu tacaala. rabbiyaan ka baryaa inuu xaqana waafajiyo, nagana dhiga dad diinta iyo taacada ilaahay ku dadaala subxaana wa tacaala ilaa yaqiintu ay noo timaado. ilaahay waxaan kaloo ka rajaynaynaa oo aan ka baryaynaa dad tawxiidka ku dhintay inuu ilaahay naga dhigo, carabkeena midka ugu dambeeya laa ilaaha ila allah inuu ilaahay ku saqiro subxaana wa tacaala. wabilaahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.